Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Meel kastood ka joogtiin dunida daafeeda. Magacaygu waa Axmed Faarax. Halkaa nagala socotiinna waa Himila Midi Production. Iyo sidoo kale Himila High School. Saaxiibayaal, maanta waxaan rabaa inaan halkan kusoo gudbiyo wax la yiraahdo Recycle Bin Embed. Sidaa ku soo aragteen title-ka hore ee casharka. Waxaan maanta ka hadli doonaa Recycle Bin Embed. Bal haddaba waxaan rabaa waa maxay horta Recycle Bin? Maxuu noqotaa? Recycle Bin horta waa midka noocaana. Kan waa Recycle Bin lagu sheega kan waaye. Waxa waaye recycle bin sidiisa wuxuu noo qabtaa waa god qashinka kombiyuutarka. Haddii ay xaafadaadu leedahay god qashin wixii wasakh ah iskaga shubtid. Kanuna waxa waaye god qashinka kombiyuutarka. Hagaag. Bal haddaba waxaan ogaan doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee recycle bin noo qabto. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee recycle bin noo qabto waxaa ka mid ah haddii aad data tuurtid. Waxa ka data tuurtid haddii xaalad folder, file, picture, video, program wax kasta noqotaba haddii data aad tuurtid waxay geli doontaa datadaas wal soo tagay waxay geli doontaa recycle bin. Recycle bin markay gasho ma noqon doonto data laga samri karo ee waxay ku hay doonaa recycle bin oo dib u soo ceshatid waa ku soo ceshan kartaa kombiyuutarka. Hagaag. Bal haddaba waxaan rabnaa horta recycle bin inaan soo furno. Marka soo furno hadda waxa ujeedaa waxyaabo badan inay ku jiraan ayaa ujeedaa recycle bin oo gudihiisa ay ka soo muuqdaan muuqaalo badan, programyo badan. Waxa ujeedaa sawirro badan wax walba inay gudihiisa ka soo muuqdeen. Bal haddaba waxa aan gudihiisa ku shubay oo hadda gudihiisa aan ku jiro qaabkeed dib ugu soo ceshan karaa una keensan karaa halkan desktop halkan shaashada kombiyuutarka sidee u keensan karaa qaab sahlan waay. Hadda tusaale ahaan waxaan rabaa file abuura filekaas waxaa u bixi doonaa recycle bin embed ayaa leeyahay embed ku qoran. Hagaag. Filekaas waxa ujeedaa waxaa noo qoran embed ayaa noo qoran fileka markaa raba inaad tuuro qaabka u leedahay dhowr wado ayay leedahay horeyna waa u soo sheegnay inaan ta select gareeyo kadib leedahay keyboardka oo aan delete ka iraado keyboard kombiyuutarkayga aan ka delete waa qodobka xigo inaad ta right click iraado halkaas delete ku qoranta hoos ku dhufto. Qodobka saddexaad inaan move isticmaalo oo aan draw sameeyo soo jiido soo doorto aan soo jiido recycle bin ka durkeena markuu yira move to recycle bin aan ku sii duldaayo. Hadda fileka meesha uu ka baxay fileka hadda meesha uu ka baxay oo hadda dii ay qorto waxa la empty kuma soo baxay waa ujeedaa wuxuu galay recycle bin ayaa furi doonaa kadibna waxa ka dhex raadi doonaa fileka ay noogu qorneed empty waa ka fileka soo jeed waxaan rabaa markaan fileka dib u soo celiyo fileka markaan rabaa inaan dib u soo celiyo asaga ayaa dul tagaya right click ayaan leeyahay. Haddii aan rabo inaan meesha ka sii baxso gabi ahaantiis baa ka sii bixi karaa oo dileeda dhigi karaa. Haddaan rabo inaan soo jaro cut ayaan soo dhigi karaa. Haddii aan rabo inaan dib ugu soo celiyo laakiin desktopka oo aan rabo meeshiisa inaan ku soo celiyo desktopka kombiyuutarka haddii aan rabo inaan ku soo celiyo waxaan samayn doonaa markaan recycle bin tago oo aan filekaas dul tago waxaan dhigi doonaa restore halkaas ay ku qoran tahay restore ayaa ku dhufan doonaa kadibna dib ayaan u soo laabanaa halkan ayaa waxaa ka raadinaa fileka ay ku qoran tahay embed waa ka maxaa ujeedaa waa lagu soo daray desktop waa ka faa'iido kooban oo leeyahay waxa waaye recycle bin wixii aan ku turno inaan dib u soo ceshan karno. Sidoo kale 10 sano ka hor wixii aan ku turtay recycle bin haday ahaale muuqaal sawir folder ama file picture video wax walba ay noqotaba sanado ka hor wixii aad ku turtay hadii aadan ka sii dileedin waad ugu tagaysaa. Haddii aad rabto markaa inaad nadiifido recycle bin inaad isagaba nadiifido oo empty ka dhigtay daartid waxaad samayn doontaa control A ayaa dhigi doontaa datada waa select garay doontaa kadibna hal mar ayaad right click dhigi doontaa halkan hoose ay ku qoran tahay delete ayaa ku dhufan kartaa halkaas hoose ay delete ku qoran tahay. Haddii aad rabtid gebigeed inaad hal mar soo ceshatid oo desktopka aad geysatidna waxaad door doontaa halkaas muujeedido ay ku qoran tahay recycle bin tools halkaa aan ku calaameynaa ayaad ku dhufan doontaa. Haddii aad rabtid embedna halkan ayaa waxa ku dhufan doontaa recycle bin embed ani hadda ma rabo data inaad tuuro ma rabo ama maartay inaan hal mar desktop ku celiyo ma rabo sababtoo ah waxaan oo dhan hal mar desktop ku celiyo waxay u keeni karaan culays ku keeni karaan kombiyuutarka oo qashino badan waaye qaar u baahanahayna way jirtaa. Marka haddii aan rabo dhamaantii aniga inaan iska tuuro halkaas ma haddii aan rabo marka wixii item inaan baxsho halkan ayaa ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay restore all item. Hagaag.
agaag saaxiib hadda waxaa dhacay erer yaraa dhacay ererka sirkaa dhacay wuxuu ka dhacay okay waxyaabo badan lagu soo tuuraya jiro test waatana waxaa jiro qaybtana jirto fiidiyoyadan iyo waxaan oo dhan hadda dib baa lagu soo hadda waa in haddana mar kale aan tuuro ayay tegeysaa marka recycle bin markuu empty aysan waxba ku jirin waxyaaba lagu aqoonsanaya waxaa kamid hadda waa dileeda waxaan oo dhan waa ka baxaa meesha ka saaraa empty markuu yahay waa ka garaafo bannaan oo caadiya waa ka waxaa ujeeda hadda waxba kuma jiraan recycle bin waa recycle bin empty waxaan kusoo tuuraa adiga faylkaan kala soo folderkaan kala kusoo dhex tuuraa muxuu noqon doonaa fiir sida in barf lagu rido noqon doonaa fiirso waa ku sii dhaxdeena maxaa ujeeda hadda maxaa la moodaa xoogaa barf inuu ku jiraa moodaa in wax lagu rido waa ka dareemi haddii aan waxa ku jira ka tuuro fiirso yaa wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo meel bannaan ayuu noqon doonaa faaruq uu noqon doonaa waa ka recycle bin empty haddii aan ka dhiga large oo aan ku soo dhaweeyo aka recycle bin hadda waxaa ujeedaa inuu faaruq yahay oo meelshu ay faaruq hadda ka muuqato waa ujeedaa waxaan samayn doonaa marka waxyaaba badan ayaa kusoo dhex dari doonaa waxyaaba badan kusoo ridi doonaa hal qabo ka mid ah haddaa kusoo ridid waxaa ka dareemay in wax lagu soo rido aka in barf inuu ku jiraa muddaa soo ma jeedido aka saaxiibayaal maanta waxaan u malayaa qof walba way fahantay recycle binka iyo waxyaabaha uu qabto cashirkana maanta inta siyaarmin inaan ku hadalno haddii ay tahay marka ugu horreysa cashirku soo gaaro cashirka leeg saar siina share garay haddaan naga socoto youtube-ka subscribe saar kadibna fura gambalaha si video walba uu kugu soo dhaco wixii su-aal ay qabtid qaybta hoose ee commentiga inoogu soo qor tan intaa gaari doona cashirkan xiga waa dhammaantiin leh isma dhaaf